wardagdaga muqdisho caawa kacdoon culus ayaa ka taagan waxa ishaya mucaaradka iyo dawladda kor iyo bari gaadiid dagaal ayaa isu dhaafaya ciidankii ugu badnaa ayaa gudaha magaalada soo galay waxaana xaalku u muuqdaa caawa inuu yahay mid culus haddaba caasimada Soomaaliya ee Muqdisho maxaa ka socanayo madaxweyne Xasan Maxamuud ayaa amar degdeg ah dul dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir Muungab waxa uu yiri 20 degmo ee gobolka Banaadir min 100 qof oo dhalinyaro iga keen garoonka wish la yiraahdo oo madaxweynaha uu khudbad ka jeedinayo waxaana madaxweynaha dadkaas oo 2 tiradooda uu ku qiyaastay oo kala hadlaya ajadooyinkii siyaasadeed isagoo oo doonaya in goobtu ay noqoto mid camiran sidoo kalena ku amray Muungab in dadkaas uu keeno haddaba xog soo baxday iyo macluumaad dheeriya ayaan ku hayaa madaxweyne qorqor indhaha kama qarsan doono kooxaha danleyda ee khilaafka ka dhex abuuraya reer galmudug arimaha dhexdooda mana yeeli doona ayuu yiri galmudugna ma aha galmudugtii la yaqaan ayuu si cad u yiri qorqor gasha ayuu seefta kala baxay madaxweyne Xasan Maxamuud awaamirtiisa ayuuna si toos ah uga horyimay waxaan isla eegaynaa qorqor warkiisa xitaa axmedoobe xog markaasi faahfaahsan ayaan kaga hayaa sidoo kale waxaan isla eegi doonaa muqdisho xilligan ciidanka gudaha u soo galay maxay ma kuwa mucaarada ma kuwa dawladdu ay soo galisaa waa sidee xaaladda guud ee magaalada wararkaas oo dhan ayaan isdul istaagaynaa saaxiib soo dhawow haylaab inaad muuqaalka like saarto saaxiibadaan u sii share gareyso channelkana subscribe soo tiraado waa maasan tahay ciidankii ugu badnaa ayaa soo galay gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ciidankan waa kuwa dawladda federaaliga ee Soomaaliya ay ka keentay daafaha magaalada amniga caasimada ayaa la doonayaa in lagu adkeeyo mucaaradka iyaguna markooda waxay wadaan dhaqdhaqaaqyo lixaad leh oo ay ku hor istaagayaan damaca villa Soomaaliya madaxweyne Xasan Maxamuud caawa waxa uu jeedinayaa hadal markaas habeennimadii xalay ahayd ka baaqday xalay madaxweyne Xasan Maxamuud habeenkii koowaad ee Ciidul Adha ay ahayd qorshuhu wuxuu ahaa inuu madaxweynuhu dadka Soomaaliyeed la hadlo waana markasta wax dhici jiray munaasabadaha waaweyn ee islaamku leeyahay ee sidan oo kala in madaxda Soomaalidu ay ka hadlaan xaaladda dalka in la isku naxariisto dariska laga warqabo sidoo kale si guud dadka loogu hambaliyo laakiin xalay madaxweyne Xasan Maxamuud kaliya warqad ragga la shaqeeyay ay soo qoreen ayaa la baahay oo isagu ma hadlin xitaa warqadaasna ma qorin sida aan xogta ku helayno kadib markii ay muudka ka jireen ama ay ka qaseenba Mahad Salaad iyo ra'iisul wasaare Xamse oo howlo siyaasadeed iyo buuq ku furay taasoo keentay in madaxweyne Xasan Maxamuud habeennimadii xalay ahayd oo si toos ah u jeefsan maanta masaajidka isbahaysiga uu boqolaal kula tukaday isaga oo hadal kooban jeediyay madaxweynaha marka caawa dadkii ugu badnaa oo kumanaan ah ayuu rabaa inuu isugu yeero isla markaana ku muujiyo cudud iyo taageero xoog leh oo uu tusayo mucaaradka in wali dadku ay isagu taageersan yihiin isla markaana uusan ka tanaasulin doorashadii qof iyo codka ahayd qorshooyinkiisii siyaasadeed iyo wax walba oo arimahaas la xiriiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Maxamuud ayaa gudoomiye Muungab ka dalbaday 20 degmo ee gobolka Banaadir inuu ka keeno degmadiiba 100 qof oo dhalinyaro ah oo lagu soo aruuriyay si uu madaxweynuhu markaasi ugu jeediyo hadal halkaasina uu markaasi kula hadlo tani waxay muujinaysaa baa la yiri halkii ugu dambeysay in madaxweyne Xasan Maxamuud ay ka mareyso isla markaana mucaaradkiisa nooc walba oo dagaal uu la galayo mucaaradada madaxweynaha waa ay ku sii weynaatay kadib hadalkii maanta ka soo yeeray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor hadaladoodas waxa ugu daran tallaabooyinka ay mucaaradku ka wadaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho mucaaradku waxay wadaan hub urursi isku tashasho iyo sidoo kale in iska soo agdhawaadaan wax u agdhufeysina markaasi ay sameystaan guriga Sheekh Shariif aagag ayaaba laga qotay oo ciidan isaga taabacsan beeshiisana u badan iyo ciidan kale oo Soomaaliyeed ayaa amnigiisa damaanad qaaday waxaana madaxweyne Shariif xilligan gurigiisa ka jira dhaqdhaqaaqe aad u culus haddaba waxaan ku hayaa hadalka madaxweyne Axmedoobe isagoo oo yiri madaxweyne hore Xasan Sheekh maanta waxaan leeyahay ha ku qaatumo xumeyn ama ha ku qaatumo xumeysan kuwa ka xoog badan ayaa iska joogi waay Axmedoobe asaas dhahay dabcan wuxuu yiri qaatumo xumo bay kugu noqonaysaa mooye dad adiga ka xoog badan kursiga iska fadhin waay oo villa Soomaaliya laga saaray farmaajo iyo dad kale ula jeeda oo leeyahay dadka ayaa horta kursiga dhiibay ha ku qaatumo xumeysan iska dhiib Xasan Sheekh mucaaradka masaajidka dhexdiisa ayuu ugu jawaabay goor hore isaga oo yiri kuwa dhahaya reeqan sax iyo reeq qurac qoryaha qaata ee dagaalama 2026 ee raba inay hoggaan noqdaan ma ka yeeri doono dabcan
eedaas wuxuu u jeedinayay cabdiraxmaan cabdishakuur khayre shariif iyo ragga kale ee hawiye ee muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlanaa badbaado qaran madaxweyne xasan maxamuud xogtu waxay sheegaysaa inuusan sinaba u ogoleyn hab xukunkiisa wax yar oo ka hor imaanaya xitaa inuusan ogoleyn aadna u diidan yahay markaas in isaga waxa uu doonayo ama damaciisa markaasi laga hor yimaado xaalka wuxuu u muuqanayaa mid culus Soomaaliyana waxay cagta saartaba la leeyahay dhaba aan inaba caadi ahayn dadka qaarna waxay leeyihiin madaxweyne xasan maxamuud waa in la iska celiyaa maadaama mandatekiisii iyo xilhayntiisii sharciga ahayd uu dhamaaday Sheekh Cali Wajiis ayaa si adag kaga soo horjeestay damaca madaxweyne xasan maxamuud sheekharna wuxuu ka mid ahaa culimada sida indhala'aanta u taageeris xasan sheekh laakiin wuxuu kala wareegay markii dhul goofa oo reerkiisu iyo reerka awowihii ay lahaayeenba dawladdu damac ka galay oo ganacsato la siiyay markaa wixii ka dambeeyay ayuu Cali Wajiis ka hor yimid xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri waa in dalka laga qabto doorasho ay heshiis ku yihiin tartamayaasha heer qaran iyo heer dawlad goboleed wax kasta oo khilaaf dalka gelinayana waxaa ka khayr badan wixii la iskula joogayo ayuu yiri Sheekh Cali Wajiis oo kamid ah culimada Soomaaliyeed sheekhan ayaa si indhala'aan u taageeri jiray madaxweyne xasan maxamuud laakiin ugu dambeyn markii isaga iyo sidoo kale ay isku hor yimaadeen madaxweynaha waa uu xeeladeystay dhowr jeer oo hore ayuuna sidan oo kale dhowr fagaare oo kala duwan ka weeraray madaxweyne xasan maxamuud haddaba hadalka sheekha sideebaad u aragtaa adiga maxaase kaaga baxay aragtidaada noo reeb waa maasan tahay muuqaalkan ila daawo nafteena iyo karaamadeenna u dhintay kuwii diinteenna iyo maxaan ku raada qiimkeena u dhintay maanta oo kale waa maalinta ugu fiican aan u duceyno takbiirta aan ku darno ducada shuhadada haddii aan la yiraahdo shuhadadiina ee ku sheedan qabiil uma ayan dagaalamayn dana ay leeyihiin ma difaaceen waxay difaacayeen magaca Soomaaliyeed iyo hooyo Soomaaliyeed aabba Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed oo iskuul iyo jaamacad aadaya inuu nabad ku dhigto inuu iskuulka iyo jaamacadda iyo dugsi quraanka carruurta ay nabad ku dhigtaan hooyaduna ay suuqa nabad uga soo xamaalato waxaan rabnaa nimanka inta naftooda u huray qiimiyay leeyihiin isbaarista waa jiday taagnaayeen waa waxaas iyo anigu dama ummadda ka hadashay ma raba maanta inaan ka hadla ma raba laakiin dadka Soomaaliyeed kuwa ugu qiimi badan waa kuwa dhiigooda u bixiyay hadiyad ka weyn oo qof bixiya naftiisa ma jirto qof naftiisa ay $200 joogtahay ma jiro qof naftiisa kumanaan kun oo dollar haddii la sii taga xataa ay joogtahay ma jiro dadka Soomaaliyeed qiimiga ay ku fadhiyaan wiilasha qalabka sida ciidanka qalabka sida wiilasha Soomaaliyeed uniformka gashtay ee saacadaas aan cibaadeysanayno waajibka dukanayno ama duurka ku dukanayo ama xataa inay dukadaan muxuu u waayay kashaashimo oo cadowga hortaagan saacada xabada ridayo ay ku dhacaysa ayagana yaa ka qiimi badan yaa ka qurux badan yaa ka mudan in abaal loo gudo yaa ka mudan in loo duceeyo alla loo baryo kuwa noolna inay guuleystaan kuwii dhintayna in ilaahay naxariistii janno siiyo taas waa ku celcelinayaa ummadeenna Soomaaliyeed ee sharafta leh ee muslimiinta waxaan rabaa inaan u soo noqdo bariyahan dambe bilahan dambe waxaad maqlayseen Israa'iil cadawga Israa'iil in ay soo duushay oo ay dalkii Soomaaliya ay rabto inay meel ka degto nus ka qaadato isticmaasho maxay u isticmaaleen dadka Soomaaliyeed su'aal inay isweydiiyaan waa qof kale oo muslim ah inay disho qof kale oo muslim ah inay dulleyso qof kale oo muslim ah dhulkiisa inay qaadato qof kale oo muslim ah inay soo raacdaysay soo qaxisay meel kale keento maxaa lagu yaqaanaa Israa'iil waa intaas ma Israa'iila lagu yaqaan samafal ma Israa'iila lagu yaqaan inay dal barwaaqayso ma Israa'iila lagu yaqaan inay kaalmayso ummado ma jirtaa qarniga 12aad wax qarsoon ma jiraan wax aad iyo aad looga xumaado waaye maamulkaas waqooyiga Soomaaliya ka jiraahi in ay ku soo marti qaadaan Israa'iil dalkeena mana dhacayso mana guuleysanahay mashruucaas mana soconayo hadii aan yiraahdo dadka Soomaalida adduunyada islaamka oo dhan waxa looga yaqaanaa ahlul qur'aan dadkii qur'aanka loo yaqaanaa meel kasto caalamka oo musaabaqa tartan qur'aan oo ka dhaco wiil Soomaaliya ka soo bax ama America ka yimaado ama Sweden ka yimaado ama Soomaaliya ka tageen waa Soomaali
maraykankii quraan akhriska qaaday markaad maqasho dadku indhaha fajiciyaanba wiil yar Soomaali ah soo baxay dadkii noocaas ah ee ahlul quraan loo yaqiinay ee waliba ummadda walaalaha ee sharafta badan ee waqooyiga ku nool ee calankooda shahaadada ku qortay laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ku qortay calankii yahuudda in loo xafladeeyo calankii yahuudda qaar in dhulka inta la dhigo lagu dul sujuudo aan Soomaalida ka dhaqmayno waana la weydiiyaa war dadkii ahlul quraanka ahaay maxaa ku dhacayo ay calankii yahuudda u hugsan yihiin maxaa ku dhacayo calankii yahuudda uu say ku dhici kartaa waana la weydiinaa waxaan ku jawaabnana ma naqaan waa shakhsiyaad ma aha ummadda waqooyi degan ma aha tan burcad degan ma aha tan hargeysa degan ma aha tan boorama degan ma aha tan qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolada degan ahlul quraan waaya dadkaasi waa dad la yaqaano diinta magac iyo sharaf ku leh oo la yaqaano waay maanta sinna suurtagal nooga ma aha qayb dalkeenna ka mid ah in ay timaado Israa'iil Zionist sahaynuuniyadda caalamiga inay timaado Israa'iil kumaanaan duuli dowladnimadeeda annaga ma inkirin ma diid dowlad han noqotaan dhahna laakiin sida ayda dowladnimada u rabto kuwa kale oo maxana dowladnimada u ogolaato Falastiin dowlad ha yeelato caalamkii oo dhamma dhowaa waa nasiib darro inaan taas annaga ka waxa kale oo nasiib darrada ka sii xun oo xanuunka badan ah inaan dhahno calankii ay ku qorneeyday laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ayaan ka taagaynaa baytul maqdis oo leenahay Israa'iil iskala waa caasimadii Israa'iil caalamka aan muslimka ahayna ka xishooday inay sidaa yiraahdaan caalamka aan muslimiinta aan ku nooleen islaam diimaha kala haysta ka xishooday safaaradoodii inay soo raraan oo keenaan baytul maqdis maanta wiil Soomaaliyeed inuu calankii oo waliba saas u sii macnaysan oo meesha ka taago oo yiraahdo safaaraddeena waxaan ka fureynaa maxaan ku raadayay meeshaas magaaladii saddexaad ee magaalooyinka islaamka ugu maxaan ku raadayay sharafta iyo karaamada badneed qibladii koobaad ee loo duka jiro meeshii nabigeena muxuu ahaay kaleey salaatu wasalaam muxuu ahaay laga dhoofiyo laga raray oo cirka uu ka aaday intaas oo sharaf iyo karaama isku darsatay ee cadow ummadda muslimiinta oo dhan cadow uu ka haysto cadowgii haystayaan ku taageersanahay waa u tagaya waa la joogaya walaalaha Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan walaalaha Soomaaliyeed ee sharafta badan ee ahlul quraanka ah ee waqooyiga Soomaaliya ku nool waxaan leeyahay nama qabato nooma qaadanto mudnin ceebtaas inaan iska tirno oo aan u caqli celinno kuwa hoggaanka iyo maamulka sheeganayo ee qaraarka noocaasa gaaray waxaan u baahannahay inaan u caqli celinno gacanta ka qabanno jooga aan dhahno aan maxaan weeraan arrintaasi arrin sii jiri karta ma aha waana arrin cara ilaahay keenaysa cawaaqib xumana keenaysa ma jiro mana dhici karto in Soomaali ay muxuu ahay baytul maqdis u aqoonsato Israa'iil inay leedahay ma dhici karto magaaladaas waa la garanayaa diimihii ilaahay oo dhamma yaallo waxa yaallo kristaantigii waxa yaallo maxaan ku raacay muxuu ahay yuhuudi diinteedii taalo islaamka laakiin waxa waaye waa magaalo islaam ومجال الإسلام أيضا مجال الإسلام وحكم الإسلام يكجر أي ولقت ذاتك كريستان كا يذاتك محنكو هذا يهود يكون رأيين حنلان هاي ولا لا وقوي قارنتاس هكفير سدانو دبها أو فيريانو قان كدو قان كاسن حقاتين لنا آدي أي أرنتاس مسجدين intaas kadib mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo ciid mubaarak dhammaan ummadda Soomaaliyeed Soomaali meel kastoo ay joogto
sanadka 2026 hijrin ee maxaa kale miilaadiga koray u socotaa Soomaaliya meel kastoo ay joogtaba koray u socotaa kor u socodkaasi aan xawaare dheeri ah gelino yaanan isku dayin in aan maxaan ku raadaay aan karaar jabino yaanan ka shaqeynin oo aan isku dayin haddii aan la yiraahdo waxaan leeyahay Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan amuurahooda Allah fududeeyo Allahna barakeeyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mar kale culayska Ilaahay ka qaado Ilaahay qulubteenna ha iswaafajiyo Ilaahay asiga oo kaliya ayaa qulubta dadka badala ee Ilaahay qulubteenna ha badalo annaguna aan badalno aan iscafinno aan Ilaahay u tooba keenno aan wixii aan shalay qaladnay aan ka tooba keenno aan ka ballan qaadno Ilaahay hortiisa maalintaan barakaysan inaanan qaladkaas u noqonin qof walbaba qof ummad ahaan waxaan u taaganahay oo dawladda u dhisanaynahay waxa ay tahay in qaladaadka shalay naga dhacay oo kale aan dib nooga dhicin shalay qaladaadku waxay nooga dhaceen dawlad la'aan dawladda aan xoojinno argagixisadu kama jirto meelaha dawladaha xoogga ay ka jiraan argagixisa kama jirto ogaada meelaha dawladaha nugul ee tabarta yar ay ka jirto yaan la nuglaynin dawladdeena waa ka baxnay nuglaanshihii horay inaan u sii soconnaan rabnaa yaan nala karaar jebin oo aan dibna loogu celinin dawlad nugul inaan noqono nuglaanshihii waa ka baxnay maanta waa soconnaa caalamkii aan noo qiraayo inaan soconno oon Soomaaliyada hore ahayn oo rajo nagu xiraayo oo dana naga soo doonanayo oo masaalix soo raadsanayo albaabada noo taagan dadka Soomaaliyeed walaalayaal xumaha iyo balaayada iyo mugdiga la idin sheegayo ma jiro wanaag iyo khayr iyo horumar jira